maaha kursi suldaan leeyahay waa kursi ay Soomaalidu leedahay muslimiinta Finland leedahay waa kursi hadii la waayo ay Soomaaliduna weeyday muslimiintuna weeyday waxaan markaa u soo jeedin lahaa walaalayaal waxaan u baahanahay garab istaagiina waxa lagu mahmaha gacmahooda jirbi wax ku gooyaan maanta kursigan gacanteenu ku jira in kursigan xijisana walaalayaal intii baarlamaankan ku jiray waxaan noqday xildhibaanada dalka Finland ugu saameynta badan Soomaali baanana haday noqoto arrimaha dibadda la magacaabay haday noqoto wadanka sana uga shaqeeyay arrimaha kala duwan waxaan hogaamiyaa intaas gudiyo baarlamaanka Finland kamid ah hogaamiyaa oo qaarkood yihiin gudiyada baarlamaanka ugu waaweyn marka walaalayaal saameynta inta leeg wadankan ku leenahay waxaan idin soo jeedin lahaa markaa inaan codkeena midayno igarab istaagtaan inaan ka seexan waayo 4 sano ee soo socda waxay noqon doonaan 4 sano oo 4 sano dalka ugu xasaasisana corona dhacay dhibaatooyin badan baa dhacday waxa loo baahan yahay qof walaal inoo hadla in difaaca muslimiinta u hadla Soomaalida u hadla miiska fadhiya anuna qofkaas baan ahay waan ogahay inaan ahay qof shaqada ka soo bixi kara waxaan idinka codsanayaa markaa inaan insha Allah garab istaagtaan sidoo waxaan rabaa inaan boqolkiiba halkan uga mahadnaqo bulshada Soomaaliyeed ee Finland gaar ahaan hal doorka bulshada haday noqoto hooyooyinka sidii 24 hours ugu taagan yihiin qaar baa saambusay soo dubaya oo ololayaasha campaign-kayga meelaha aan ku campaign gareynay keenaya qaar baa gawaadhidooda dadka ku soo qaadaya waxaan markaa doonayaa inaan hooyooyinka inamada hablaha macallimiinta culimada imaamada Finland dhammaan hal doorka Finland dhalinyarada inaan u mahadnaqo sida wanaagsan ee igu muujiyeen garab istaaga inaan kaliya yahay runtii waxay tusteen waxay tahay Soomaalinimadu iyo waxay tahay walaaltinimadu iyo islaamnimadu marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaynu kursigana ku guuleysano matalaadeeneen ku lahayn wadanka Finland aanay naga lumin insha Allah anna waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo xildhibaan si markii hore looga bartay iyo si ka sii wanaagsan inaan dadkeena insha Allah u matali doono aad ba mahadsantiin